curiyaasha ugu badan ee sameeya macdanta inta badan waxa laga soo qaataa 8 curiye 8 curiye ay laga heli karaa oo ay yaalaan dhulka layerka ugu soo sareeya ama lakabka ugu soo sareeya dhulka oo qiyaas ahaan noqon karta 8 ilaa 16 mayl oo dhulka hoos marka loo gala dhagaxaanta macdanta samaysa ama curiyaashan sameynaya waxa laga heli karaa dhulka dushiisa 8 curiye ugu waaweyn si mid walba si gaar ah uma sameeyo dhagaxaanta qayb kamida macdanta sida granite-ka iyo dolerite-ka iyo adabasiska waxay ka kooban yihiin isku jiraan 8 curiye yar oo kamida ayaa mid iyo laba ama laba isugu xidhan ama saddex isugu xidhan tusaale ahaan oo kale quartz-kaasi quraaradii waxay ka kooban tahay silicon iyo oxygen labadaasi isku dhafkooga beersant ahaan ayaa waxa ka sameysma macdan kale oo fara badan silicate iyo oxygen labada curiye waxay sameeyaan in badan oo macdan ah oo aan quartz-kan ahayn labadaasi isku dhafkooga beersant ahaan ayaa waxa ka sameysma macdan kale oo fara badan laakiin kuwan kale oo lagu dhex daray waxa iyagu wax gaar ah noqdaan marka silicate iyo oxygen ay labada curiye ay ku jiraan samaysankii dhagaxii group noocaasi waxa la yiraahdaa iyaga silicate mineral qaybta laakiin oxygen aan lahayn waxa la yiraahdaa iyada non silicate marka 8 curiye ayaa ugu muhiimsan ee aynu soo qaadanaa waxa weeyaan oxygen oo beersan ahaan 40% silicate oo 27% oo taa quartz-ka ay sameynayso inuu soo sheegnay aluminum-ka oo kale 8% weeyaan oo waxay sameysaa kyanite-ka dhagax la yiraahdo iron-ti baa kamida oo iyaduna magnetite-ki waxa la sameynaya calcium baa kamida oo calcite-ka sameynayso oo Gibson-ki sameynayso sodium baa kamida oo argonite-kaasi ay sameysaa halkaasna way sameysaa oo halkaas waxa weyn dhagaxanta inta badan cusbada iyo milixda iyo cusbo labti waxa doonta potassium baa jiray isaguna potassium feldspar-ka ay dhagaxaasi sameysaa oo isaguna wuxuu sameeyaa macdantii kale ama jim ha ahaato ama brahat magnesium-ki talc bay sameysaa oo 2% ka tahay iyaduna dolomite bay sameysaa sapronite bay sameysaa marka mid walba gaarkiisa inuu sii galo doonaa curiye walba waxa uu ka kooban yahay iyo qaabka uu sameynayo isla falgal ahaan qaybta silicate-ka la yiraahdo iyo qaybta non silicate-ka la yiraahdo gaar ay insha Allah aynu sii kala doonaa iyagana